masjidka raxmi magaalada burco ayaa waxaa si rasmi ah loogu soo gabagabeeyay nadwo cilmiyeed socotay muddo 7 casho taasoo ay soo qaban qaabisay mu'asasada faafinta dacwadda diinta islaamka ee karam xafiiskeeda magaalada burco waxaana ka qayb qaadanayay badiba culimada diinta kala duwan ee gobolka Tuudhar iyadoona intii nadwadan ay socotay diiradda lagu saaray horumarada kala duwan ee bulshada u baahan tahay iyo goobaha laga heli karo xiritaanka nadwadiimeedkan ay soo qaban qaabisay mu'asasada karam ayaa ugu horeyntii waxa laga soo jeediyay baaqkaas oo ku aadan bulshada kala duwan ee Soomaalida guud ahaan qodobka koowaad culimadu waxay ugu baaqaysaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed inay Ilaahay ka baqaan qabsadaan xariga Ilaahay qodobka labaad culimadu waxay ugu baaqayaan guud ahaan ummadda gaar ahaan madaxda dhaqanka culimada iyo dhammaan waxgaradka inay ku baraarugaan marxaladaha adag ee la marayo iyo turturooyinka faraha badan ee ummadda muslimiinta ah iyo Soomaalida hor yaalla maanta saddex culimadu waxay ka digayaan fikradaha iyo mabaadi'da leexsan ee wax dumiya kana hor imanaya diinta iyo dhaqankeena suuban si gaar ah waxay culimadu ugu baaqayaan guud ahaan dhalinyarada gaar ahaanna kuwa isticmaala baraha bulshada ku wada xidhiidho inay ka digtoonaadaan fikradaha iyo dhaqamada khaldan ee lagu faafiyo goobahaas sida gaalaysiinta sheecaysiinta ilxaadka aqlaaniyada iyo dhaqamada xunxun ee kale shan culimadu waxay xusuusinayaan bulshada muslimka muhiimadda qoysku uu fadhiyo ummadda muslimka ah iyo in laga fogaado wax kasta oo qoyska burburi kara xil iyo mas'uuliyadda la iska saaro ilaalinta ubadka iyo barbaarintooda lix culimadu waxay xusuusinaysaa ganacsatada inay gutaan kaalinta kaga aadan adeega diinta horumarka bulshada iyo kubcinta dhaqaalaha kana fogaadaan mucaamalaadka aan shariicada islaamka ku banaanayn toddoba culimadu waxay baaq nabadeed u dirayaan beelaha walaalaha ee ay dirintu ku dhex martay degmada Ceelafweyn tuulada Dararweyn waxaana culimadu tacsi u darayaan ehelada iyo qaraabada ay ka baxeen dadkii ku nafay colaadaas iyagoo u ducaynaya inta ku dhimatay iyo inta ku dhaawacantayba sagaal culimadu waxay mar kale baaq nabadeed ka soo jeedinayaan faalaha colaadeed ee ka taagan deegaanka Tukarraq loomana baahna colaad Soomaaliyeed oo ay ku dhintaan shacab Soomaaliyeed ugu dambeyn iyo gabagabadii culimadu waxay ugu baaqayaan madaxda Somaliland iyo madaxda Puntland iyo waxgarad kaleba in arrinta ay si degdeg ah wax looga qabto laguna dhameeyo wada hadal iyo walaaltinimo oo bilaawdo geesta kale waxa halkaas ka hadlay Dr. Faisal Maxamed Ali gudoomiyaha jaamacadda Najah Professor Mubarak Ar gudoomiyaha jaamacadda Badar Hargeysa iyo sidoo kale Sheikh Maxamed Ali Beexi waxaanay ku dheeraadeen muhiimadda ay leedahay horumarka bulshada iyo sidoo kale nabadgelyadu inta liig ee daadanaya ama daatay ee reer la isu dilay inuu ka dharagsanay waxaan doonayaa markaa inaan xusuusiyo wax la isku waaniyo hadalka alle iyo hadalka nabiga kaleey salaatu wasalaam ayaa ugu qiimo badan ilaahay subhanahu wa ta'ala shan uquubo oo shantuba ay adag tahay ayuu ilaahay ugu ballan qaaday qofka qof nafdila xaq darrana ku dila uquubada koowaad waxa weeye inuu jahannaba gali doono waliba uu ku waari doono in ilaahay u cadhooday inuu nacdalay inuu cadaab adag u diyaariyay in cadaabka loo labanlaabi doono oo geli doono isagoo dulaysan ilaahay wuxuu waman yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'ana wa a'adda lahu 'adaban 'azima dhiigan la fudaydsaday faraha lagala baxo hadii kale kala galow ama qabiyaanada ha ku gelisaa ama wax kale ha ku geliyaane inta aan sheegay baa ku sugaya waxa loo baahan yahay qof kasta oo muslim ah in uu dheehdo diintiisa magaceeda lagana helo sifada diintiisa muslimka dhabta ahina waxa uu yahay man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi muslimku xaqiiqiga ah waa ka afkiisa iyo gacantiisaba laga nabad galo diinteenu waa diinul islaam waana diin salaamada iyo nabadgelyada ku yeedhaysa si ahaantaasa rasuulkeena suuban sallallahu alayhi wasallam hatta iska daa wax kale oo bisha markay bilato اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان وحن قبيلة الله يداو وحلو بهاي قفك مسلم كي وح آدي أوليتا نبينا وكشة دعوها فإنها منتنة وحول إسكدا يكتجا وح أوريا وح قرمون نبي يقول لبتشيرات لبا وح أوريا قرمون بكشة إلهي أكتي سوى كلي ذاتا حارول والك هلا أجادو قبيلة ديستو إنه هي بل لمد معه وكم عين ليتا حارول والك وكم عين ليتا haddaad wax kasta dhinac xun ka eegto waxa la jeedaa ninkaas waxa soo jeeda ana la jeeda waxa oo wax kasta kugu dhaca dhinacna aad saarto noloshaada murga iyo warar ka bixinayso laakiin waxa kasta dhinac wanaagsan haddaad ka eegto nolol fiican baad galaysaa
waxana guushu wax kala maaha guushu waxa weeyaan caadooyin wanaagsan oo joogto samaysato haddaad go'aansato ma inaad salaatuleelka tukato oo salaada jamaacaad ku tukato oo dhikriga maalin kasta ilaahay muddo inta laga aad xusto oo juz quraan aad akhrido oo maalin kasta waalidkaaga soo booqato oo iskuulkaaga ardayga ugu hortaga aad noqoto caadaadka haddaad go'aansato oo joogtayso waxa la hubo guusheed gaaris wa Khalid Bakayle fogaana raga xorta Star TV Burco.